السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada waa walaashin Umu Mansuur. Maanta video yar ayaan idinkugu talagalay. Waa ogahay waqti aad u fara badan inaan YouTube-ka ka maqanahay oo maaragtay videoyaasheeda ay aad u yaraadeen sida iiga barateen. Dhammaan abaayooyinka mar walba igu xiran i dhiirigeliyo waa idinkaga mahad celinaa meel kasta joogtiin. Video yar aan maanta idin haya videogan sidaan idin sheegay walaalayaalow maanta waxaan idin hayaa video yar oo maaragtay maadaama gabdho aad u fara badan ay ila soo xariirayaan aan ugu talagalay in aan maaragtay wax badan gabdhaha aan u iftiimiyo. Hadda ka hor waxaa la yiri wadan maaragtay wadamada carabta ka mid ah ee qisadan ka dhacday waxaa la yiri maamo ayaa waxay haysatay hal wiil oo kaligiisa. wiilkeedii ayaa waxaa la yiri wuu ka dhintay. Markuu ka dhintay maamadii waxay dareentay xanuun aad u fara badan. Hooyo cunugeedii ka dhintay waa dareemi kartiin kulligeen hooyooyin ayaa nahay. Aad ayay u xanuunsatay, aad ayay u kurbootay. Ayadii oo sidii ah ayay waxay u tagtay nin sheekh ah ama xakiim ay carabta dhahaan oo dadka maaragtay loo tago wax la weydiiyo ama sheekh iyo waxaas. Ada carabta xakiimna way dhahaan af Soomaali wax lagu garo laakiin nin sheekh ah iska dhahno. markay u tagto waxay ku tiri wiilkaygii wuu iga dhintay la'aantiisna ma noolaan karo waxaan rabaa inaan isdilo. wuxuu ku yiri shaydaanka iska naar ha isdilin ma rabtaa wiilkaadii inuu kuu soo noolaado. haa ayay tiri waan rabaa. wuxuu yiri marka hal wax ayaa lagaa rabaa inaad samaysid. waxaan kaa rabaayuu dhahay 24 saacadood kaliya in aad ku noolaatid guri aan waxba dhiba ka jirin. guri aan waxba murug ah ka dhicin weligiis. waa 24 saacadood bis kadib igu soo noqo wiilkaada wuu kuu soo noolaanayaa. islaantii way baxday waxay tiri ballan way baxday magaaladii joogtay ayay ka tagtay magaalo kale ayay tagtay. guri ayay gargaraacday islaan ayaa ka furtay waxay tiri gurigan weligiis wax dhiba ama wax muruga ma ka dhiceen. haayay dhahdayoo odageygii ayaa dhintay ilmo agoona ayaanan haystaa meeshaan waxaan ku korin lahay iyo waxaan siin lahay ayaan bala ahabo oo maalintaas ilaa hadda waxaan murug iyo dhibaato ahayn maba ku noolinba. way ka tagtay tuulo kale ayay tagtay guri ayay ku gargaraacday islaan ayaa ka furtay waxay tiri gurigan weligiis wax dhiba ama wax muruga ma ka dhaceen. markaas waxay tiri haayo odagayga baa jiran sariiruu saaraya muddo 10 sano ah asaga ayaa noo shaqayn jiray maantana waxaan la ahay waxaan asaga daawo u siiyo iyo waxaan ubadkaygii ku koriyo oo murug ayaan anaka dhan ku wada noolnahay. maamadii way fadhiisatay markaas ayay fikirtay wixii uu wadaadka rabay xigmaduu rabay inuu siiyo ama xakiimka waxay ahayd adduunyadu inaysan jirinin qof bilaa ma aratay dhib ah ama bilaa murug ah oo uga dan lahay maanta adi dhibka ku haysto waxaa jira ka ku haysta mid ka weyn qof uu haysto oo haddana dhihin waa isdilaa oo haddana nolosha ka sabrin oo haddana niyad jabin oo weli halgan iyo dadaal iyo kac iyo kuf ku jiro inuu jiro. saas ayay ogaatay message-ka oo u diraya ama fariinta uu rabo xakiimka inay ogaato inay tahay hadduu adiga dhib ku haysto kuwa adiga kaa sii daran ayaa adduunyada ku wada nool. mana isdilayaan mana ooynayaan mana cabaadayaan ee qadartii alle ayay ku sabreenoo gurigooda ayay fadhiyaan. qisada kaleeto oo aan rabay inaan la wadaago waxay tahay wiil saaxiibkiisa ayagoo isla socdo ayaa waxay soo mareen magaalo aad u qurux badan guryo aad u waaweyn gaari cad oo qurqurux badan meel aad u qurux badan. markaas wuxuu yiri waxaan ku weydiiyey saaxiibow nimcooyinkan markuu ilaahay qaybinayay oo irsaaqadan ilaahay qaybinayay annaka halkee baan jirnay. markaas wuxuu yiri soo bax meel ayaan ku geynayaa. intuu waday ayuu wuxuu geeyey isbitaalkii markuu geeyey isbitaalkii waxaa jooga dad wada fara badan oo aad u xanuunsan qaar oksijiin ku neefsanayo qaar ma aratay lugala qaar indhala. wuxuu yiri saaxiib waxaan ku weydiinayaa ilaahay markuu masiibooyinkan iyo dhibaatadan qaybinayay halkee baan jirna aniga iyo adiga. markaas wuxuu yiri alxamdulilah ilaahay ayaan ka magan galay oo aan masiibooyinkan saaxiib nagu itixaamine kaalayo meesha naga wad adiga ayaa iga saxnaayay.
arrintan waxaan ugala jeedaa labadan qiso oo gaagaaban in aan soo qaato adduunyada qof walbo dhib inta ku filan ayuu haystaa haddaad adiga maanta dhiban tahay waxaa laga yaabaa qof adiga kaa dhib badan inuu adduunka ku nool yahay laakiin mid waxaad ogaataa dhibka waa laga baxayaa maxaa looga baxaa dadaalkaada maxaa looga baxaa inaad u adkaysatid maxaa looga baxaa inaad ilaahay bariso maxaa looga baxaa inaad sabir iyo dulqaad aad la imaato oo aadan meeshana istaagine hor u socod aad samaysid haddii aad maanta ku dhiban tahay aqoon darro ay ku haysato waa inaad wax barataa oo dadaashaa haddaad maanta ku dhiban tahay dhaqaalo la-aan ay ku hayso waa inaad dadaashaa oo shaqaysataa oo sidaa dhaqaalo darrada uga bixi leed sidaad horumar ku gaari leed aad ka talisaa ood hore u socotaa haddii ay maanta caafimaad darro ku hayso waa inaad dadaashaa si aad ugu noolaan lahayd nolol fiican cunto fiican u cuni lahayd hadduu jimicsiga dhibaato kaa haysto u jimacsan lahayd haddaad daawo u baahanta daawadaadii u raadsan lahayd ilaahay u baryi lahayd ilaahay u tala saara lahayd waxaa jiro dad aad u fara badan oo wasaq badan iyo qashin badan dusha ku sito oo qashin aad u fara badan iyo wasaq ayay wadaan waxayna rabaan qof ay u dhiibaan ama qof ay hor dhigaan dadkaas waa dadka niyad jabiyo waa dadka ku dhahaya wax ma baran kartid waa dadka ku dhahaya wax ma qabsan kartid waa dadka ku dhahaya ma shaqaysan kartid waa dadka ku dhahaya weligeedba adduunyada dhibkaas ayaa ka jiray dhibkooda iyo qashinkooda iyo negatifkooda iyo xumaantooda inay adiga dushaada saaraan waxba kuuma soo kordhinayso dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay noloshaada inaad ka saartid horay inaad u socotid inaad halgantid inaad ku fakartid maanta meeshan ayaan taaganahay sidee baan tilaabo hore ugu qaadi karaa sidee baan hankayga u hiigsan karaa sidee baan isbeddel ku samayn karaa sidee baan xaaladda aan maanta ku jiro iskaga beddeli karaa oon horumar u samayn karaa dhan walbaba ha noqotee marka videogan uguma aanan talagelin in aan niyadda kuu dhiso uguma aanan talagelinin in aan ku madadaaliyo ee waxaan ugu talagalay in aad ogaatid adduunyada wax walba inay ka jiraan wax walbana adiga gacantaada ayay ku jiraan in aad guuldarro dareentid adiga ayaa go-aankeeda gacantaada ay ku jirtaa in aad guulaysatid isla adiga ayay gacantaada go-aankeeda uu ku jiraa marka adiga ayaa waxaa lagaa rabaa waa laba wado waa bidix iyo midig waddada guusha miyaad qaadaysaa mase waddada guuldarrada taas adiga ayaa go-aankeeda iskale uma mansuurna go-aankeeda iskama lahan walaashaana go-aankeeda iskama lahan aabbahaana go-aankiisa iskama lahan hooyadaana kuu go-aamimee waa go-aan adiga maskaxdaada la rabo inuu ka soo maaxdo oo adigu inaad go-aan ka gaartid ayaa lagaa rabaa aniga uma mansuur ahaan waxaa igu kalifay videogan inaan sameeyo dad aad iyo aad u fara badan oo dumar u badan ayaa ila soo xiriiro markaasaa markaan ma aragtay inaan caawiyo isku dayo waxay ku leedaha ma samayn karo waxaas way igu adag yihiin lacag ma aruurin karo wax ma baran karo saansaa ma yeeli karo waa wax adag luuqadda lama baran karo dhaqaalo meel lama dhigi karo waxbarashadu way adag tahay shaqadu way dhib badan tahay marka taas ayaa igu kaliftay in aan maanta videogan aan idiin sameeyo ogaaw dahabka aan xiranno oo aan ku xaragoono dab ayaa lagu soo kululeeyaa dab ayaa laga soo dhaliyaa si uu maaragtay u soo dhalaalo lagugu soo qurxiyo mehe asagoo sidiisa iskagama soo baxo miraha iyo geedaha adduunka ka baxayo waxay soo maraan in la beero la waraabiyo waqti badan ay qaadato inay soo baxayaan wax walba adduunka juhdi ayay u baahan yihiin juhdi haddaan la gelin waxba ma hagaagayaan haddaanan hadda soo fadhiisan lahayn oonan kaamirada soo qaadan lahayn oonan si qurux badan qamaar usoo xiran lahayn videogan ma aanan samayn lahayn marka wax walbo waqti iyo juhdi haddaad gelisid waad ku guulaysanaysaa waa walaashaa uma mansuur oo kule weligaaba qof kaleeto yuusan go-aan nafsadaada ka gaarin ama horumarkaada videoga xiga intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.